shirkan jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Uud aqoon-yahan Cabdishiix Xasan Mataan ayaa waxa uu daanaa dhayla baasan u soo jeedinaya xukuumadda madaxweyne Siraanyo iyo jawaab adag uu ka bixiyay hadal maalintii shalay ka soo yeeray wasiirka wasaaradda boosaha isgaarsiinta Soomaaliland mudane Maxamed Jaamac Abgaal musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Uud aqoon-yahan Cabdishiix Xasan Mataan ugu horeyntii waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda boosaha isgaarsiinta Soomaaliland waxaana ku tilmaamay waxaan jeclahay inaan waxoogaa laba kalmood ka iraado hadal jawaab celin ah oo wasiir Abgaal shalay toona saxaafadda ii mariyay wuxuu yidhi waxaan raaligelin ka bixinayaa hadalladii Cabdishiix ka yidhi masaajidka hadal deelqaafa kuma hadlo saxaafadda waa lagu yaqaan wax laga bixiyaa boolajina maan odhan haddii uu hayana wuxuu odhan lahaa ereyga boolajina ka bixinayo sheegi lahaa maxamed isaga deelqaafa ku badnaa oo hadallada dhacdhaca iyo shaqsi weerarka madaxweynaha uu wasiirka u yahay uu u mari jiray hawadu ay badnayd aniga ceeb bay xataa igu tahay kelmaduu odhan jiray maxamed halka ku soo celiyo wax ka baxsan anshaxa saxaafaddana shalay wuu ka qaaday halka waanan jeclayn idagu dheeda inaan soo celiyo haddii ay jawaab baxaysana waxay ahayd inuu maxamed jawaab ka bixiyo hadalladan ka hadlay oo ah inta isaga ka khusaysa laakiin dee wuxuu tusaale fiican ka yahay xukuumadda uu matalayo wasiirka ka yahay oo muddo wasiiradiisa inay leeyihiin dhaqamadii golayaasha anu waxaan ka hadlay xukuumadda waqtigeedu dhammaanayo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Uud aqoon-yahan Cabdishiix Xasan Mataan waxa kaloo uu ka hadlay heshiiskii xukuumadda waxaana uu ku dhaleeceeyay waana xaqiiqo jirta in taladii xukuumadda iyo waqtigii loo doortay ay ku eg tahay 27 bisha waa inaga xigto 7 ilaa 8 habeen welina aan la gaarin xal siyaasi ah iyo wixii looga gudbi lahaa arrinkaasi waa arrin inoo yaal Somaliland ahaan inagoo dhan waa arrin xalkiisa u baahan waa arrin guddoomiyihii guurtigu baal maray halka uu khilaaf ka xalin lahaa khilaaf cusub abuuray waa arrin madaxweynihii gogosha fidiyey uu ku dhici laayay fulinta go'aankii madaxweyne ku-xigeenkiisa ku matalayay ee uu gogosha ku fidiyey waana arrin loo taagan mucaarad ahaan xisaabta iyo shacabka iyo madasha iyo cid walba wixii laga yeelayo weli dowladda waqtigeedii wuu socdaa hadday xal ummadoo keenaan beeshii looga gudbayo ayaa iman iyo wixii kale ina gaarsiin lahaa doorasho in laga wada hadlo haddii ay dhici weydana taladii looga gudbayey waa mid inoo taala waxaana xaqiiqa ah 27 bisha haddii saanahay lagu gaaro inaan la aqoonsan doonin xukuumad uu matalayo mudane Axmed Xamed Siraayo iyo wasiiradiisa iyo inta ku xeeran tala qaran iyo looga gudbi haddii ay ka maarsan weydana waa intii aan ka idhi maalinta horena waxay nagu celini waxaynu ka gudubnay 3 sano ka hor in la isugu yimaado madal la mid ah hadduu gacan birahayo hadduu gacan dhagaxayo gacan caaga hadduu hayo intaba waa la arki doonaa dadkana isaga ugu hor carari doona isagana ugu liidan doona hantida iyo guryaha dawladda iyo waxaan uu dhacay sidaa ku haysan maayo waa la isugu imanayaa ka uu loogu horeynayana waa cali waran cadde been isu sheegin dadkii bani aadamka haba la leeyahay askar baa lidin qoraya Sacuudi Arabiya lidin geenaya war Sacuudi Arabiya arigeenu u dhoofin jiray ma dadkeenu imka u dhoofin Sacuudi Arabiya xabad baa ka socota Xuutiyiintii bay istileen Yemen bay istileen inagu waxaynu xaq u leenahay inaynu walaaltinimo ku dhexdhexaadino waa dad aynu dhaqan iyo diin iyo caado iyo ummadnimo iyo taariikh dheer wada leenahay cidii dhexdhexaadin lahayd koobaynu ka nahay ay dadkay isugu dhawaayeen laakiin saaka 1500 baa burcad laga qaadayaa oo la diiwaan gelinayaa dadka waxaan leeyahay waar dadkiina ceshada inaan sharci ahayn anigu soo sharci ugu sheegay sharci darro ugu sheega saaxadaasaan wada imanayna isagoo iga liita waliba baa sharciya sharcigii uu cunay oo uu ku tuntay anigu sharci ma qabsaday beero ma yaamihii ciid wixii ka dambeeyay horta dadka waxaan leeyahay ciidiyada oo yaamihii ciid garanaysaa dadka reer Soomaaliland oo dhan ciid mubarak baa leeyahay ciidii Ramadaan la soo soomay ma dad soo soomaa ilaahay caabuday oo ciiday in hadal xun oo aan munaasib ahayn lagu soo dhex tuurano waa nasiib darro
ninka xusbiga oo ciid madaxweyne ku-xigeenka uga sharaxna boorama ka hadlayay waxaan leeyahay nin dhallinyaraha baa too doonaya siyaasad inuu soo galo oo doonaya dad inuu waddanka maamulo higsanaya ana waxay la tahay in aad rajo ka qabin inaad cid maamusho ama waddan maamusho sababtoo ah baa yoomil ciidkii waxaad ku hadlaysay wax aada looga yiqsoodaa bay ahaayeen inaad tidhaahdo ayaamaa hadhay war waddankan ayaama uma hadhin dowlad buu leey xilli uun baana ilaahay hadduu garto laysbedeli doonaa doorashadii dib u dhacday cidna laguma khasbi karo doorasho dib u dhacday ayaantaa hadday gaadho sidan bay wax noqonaya ama sidan aan wax ka dhigaynaa ama dadkau dagaalama ama dadkau kaca mid suurto gelaysa ma aha waa wax ku hor yaalla adiga oo hadafkaaga siyaasadeed ba hor taalla taa waad ogaanaysa waxaa kalean ku ogeysiinayaan kuu sheegaya waddankan dee dimuqraatiyad baa adiga ku keentay laakiin waxba kama ogid nin wax ka ogi waddankan inuu colaad ugu baaqo dhibaato ugu baaqo oo 1991 ugu baaqo waa ninaan waxba ka ogeyn cid se kaaga liidataa maanta hadday dhacdo ma jirto oo meelaad u cararaysaa ma jirto adug marka waxaan ku leeyahay waddanka ka xishooda dadka ka xishooda waa qof damiirkiisu waa inuu xadeeya oo wuxuu diidaa damiirkaagan waxba kuu diidi marka waxa weyn macnaha tabanqoraadsiga la yidhaaha ayaa ka haysataa fakar xun in layska socdo wuxuu qofku iska socon karo wuxuu ku hadli karo waddankana dagaal ka dhici maayo cidina rabshad ka geysan mayso dowlad buu leeyahay amni baa ka jira nabadgelyaa ka jirta doorashooyinkuna xilli uunbay iman doonaan horeba way u dhaceen dib bay u dhaceen waxaa laga yaabaa waqtiyo dambana inay dib u dhacaan waxa iska yimi weeye mujaahid ibraahim dhegoweyno xalay aan arkayo si caytamaayana waxaan odhan lahaa ibraahim dhegoweyno waxaan odhan lahaa ibraahimow dhowr jeerna hadalla xumaa telefishinka oo midiyaha marisa nin waddankan magac kulena waata waxaan ku odhan lahaa bal dib hadalladaadii u dhegayso kumay habboonayn adigu inaad siyaabaha u hadasho nin kula mid ahaana inaad caydo kuma habboona waxaan ku odhan lahaa intaad hadalladaadii hore oo aad goorta intaad dhegayso dib u xaakino dib bal isu dhegayso dabeedna waxa weeyaan dee dadkii aakhira jiray iyo kuwaa soo hadhay aad hogaaminaysa adugu dee hadalladaasu hadalla inay imanayaan laysku ogaan maaha inaad ama mid kula mid ahaa caydo ama waddankii caygu ama dowladnimadii aynu faraa kaga goynay aad cayo ku wado ku jawaabto taa kana caygan waa laga qurux badan yahay waxaan ku odhan lahaa ibraahimow dee waddanka magac baad ku leedahay waddanka waa waddanka aad hawl badan soo gashay raggii aad hawl soo wada gasheen inaad waxyeella kale iyo qadaf u geysata maaha hadal wax ka xumaynayo qof caloosha qofka maroojinaya inaad tidhaa maaha in adiga lagu caaya munaasib maaha khayrkaa in la caaya munaasib maaha waxa weeyaan eer waxaa tahay maanta ragga noole inaad kuwa dhigta taallooyin aad tiraa taallooyin hala dhisiyo laamiyada magacyadooda lagu qoraabaad haya inaad tiraa hebelow sharci daraad joogtaa oo hebelow fadhiyi maysid ayaamahaas oo meel ka dhac weeyaan arrinkaa waxa weeyaan inaad tidhaaha adigu ma ahayn adiga laakiin dadkan shalay garaadsaday aan war ka ahayn waddankan wuxuu yahay dee dadku wuu la yaabaya laakiin adiga imaka inaad arrinkaas inaad adigu dib uga noqoto bolojism xisaabaa fiican ibraahim oo aad wax badan dee xeeriso adigu inaad waxa wanaagsan sheegtaaba inaad wax xun sheegta ma ahayn adigu inaad ibraahim waxa wanaagsan sheegtaaba wax xun inaad sheegto oo cay sheegto oo hadalla la fajabo qabiilnimada iyo dadnimada ku xun ayaad tidhaha ma fiicna ana waxaan ku leeyahay sharaf baynu kala mudannahay madax iyo mijaba laakiin hon qofku dee u xeeriyaa oo inaad waxa wanaagsan tilmaanta annagu waxa wanaagsan baanu tilmaamayn waxa weeye waddanku wuu horumaray oo nidaam wanaagsan iyo nidaamkan ama muddadan doorashadan dhaaftay iyo waxaan anigu door bidi maayo
waxaan door bidayaa horumarka iyo dhismaha waddanku u higsanayo in hore lasii kayman doono horena ha u sii wado ayay meesha noqonaysaa ka joogaana imanka ilaa waqtigiisa ilaah unbaa og xilligu ku gaari doono laakiin shaqaduu wado dee ninka ka bedeli doonaa oo in hore u sii wada inagu waxaynu u baahanay waddankeennu inuu soo kabto oo laamiyadu soo kabmaan oo daaraha iyo dhaqaalaha iyo wuxuba ay horumariyo laakiin in hebelo dee sida makasta loo hadlo ma fiicna marka waxaan ollaha hay-adaha amniga ku shaqala waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha iyo booliiska generaalka xukuumayo oo de qof qori soo qaataha suginaya kuwa afka ka hadlaaya dad kale oo dagaalama mudaharaada waxlaaya wax qarbuda de hala qabto oo sharciga hala keeno ninbaa aan waddanka xil ka hayn oo shiciba yaa intuu media yimaado odhanaya waddanka hala dagaalamo oo dadku ha dagaalama hala mudaharaad dadku mudaharaad ma dagaal ka yaqaana dadkeenu mudaharaadka ma yaqaan wax imise jeeraal mudaharaad dadka qaarna dhintan qaarna dhaawacmay haween hay'adaha amniga ku shaqada waxay nabadgelyada ka hortaga ka daba tagaha sugina in qof marka qof dilaa soo qabataan dadka hadlaaya nabadgelyo xumada ku hadlaaya hay'adaha sharciga in maxkamada looga yeedho oo CID-da looga yeedhay nabad sugidii oo la yiraahdo bal waxa kugu kalifay sheeg oo dadku wax weeyaan taasna taasaan leh oo cid waliba shaqadeeda ha qabsato dalkan dhibaato xoog loo soo maray dhibaato kale uma baahna imaka ila kobciyaa buu baahan dhaqaalihiisina hor loo siinayo dhismihiisa iyo wadooyinkiisa la siinayo ayuu baahan uma baahna qof caytama uma baahna qof dadka dhacay uma baahna qof madaxweyne caay uma baahna qof xusbi caay waxa loo baahan yahay in wax loo wada qabto xusbiga mucaaradka soo socdo hadii wax mucaaradnimada tee wax toosiyo dawladda toosi laakiin qabiil caay iyo qof ay hadii mucaaradnimada noqoto taas meel laga de kuwa mala naga dambeeyaa uu sheegi doona waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland warnabadana haysataan iyo nabadgelyadan iyo dawladnimadan iyo systemka qof iman doona iyo qof soo socdo shariic khayr wuxuu soo socdo aan war loo hay ayaan gacmaha loo luulinay anagu nabad baanu haysanay dawladnimo baanu haysanaa kolka cidii joogtana way mahadsantay cidda iman doontaana de waxaan rabnaa oo dariiqani ma kala jeexaa wanaagsan oo jeexay madaxweyne Silaayo inaan dal laga baydin laakiin nimanka reer hebel ku mucaaradtama reer hebel iyo aynkan iyo aasir waxba reernimo dawladnimo qabto xusbina ma samayso waa yunad wada jiriyo dawladnimo ilaa bari ilaa min galbeed dadka reer Soomaaliland oo walaaltinimo lagu dhaxabuuro ayaa fiican oo dadka qofku wax doonaya dabcan rabaa dadka wada ka soo si aan u hadlo laakiin xaafadooda ka baaqaya intuu 10 iyaga reerkooda familygooda isku xeeray cid soo caayo deemiyad ma ka caayisad wax ka doonaysa waxa caayisad qoladooda wax ka rabtaa ma suurta gelisaba taas mid soconaysa ma laakiin qof hadafka dawladnimo iyo nidaamka uu ku shaqeeyaa waan marka idinkuna waa mahadsantiin dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa oo nabad haysta qof aan shakhsiyan keligii doonaya afkiisa wuxuu doonayaa inuu nabadgelyadiina waxyeello u geysan anigu waxaan u qabaa kuwan inay shandada mara sitaan dabeedna dhaqaalaha yaryar loo ururiyay hebel baa wax cuna waayo waxa wax ku badan hebel baa wax cuna ku badan hebel baa wax cuna ku badan hebel baa lacag qaataa ku badan hadalladooda ku badan marka qofka lacagta qaateen lacagta ilaahay baa bixiyo qaybshay mala mid hogol lacag u daadana dadka kuma jiraan maleen laakiin ilaahay baa wax hada oo siiyo dadka wax siiyo marka qof uu mid badan siiyo qof mid soo taa ilaahay baa ku shaqale anagu laakiin qofka qofka daba qaylinaya hebel lacag buu cunay hebel kan qaatay kanal hebel baa sidii wasreeb baa macna ma samaynayo waa qof baahi uu ka hadlanaysa way u muuqata marka baahidaada awradaada dadaal la yiraahdo hawee dawladnimada yaan u ciyaar xumayn dadka xumaanta ka hadlo dib isu dhageysta ilaa waxa idin hadalkaani oo xunaad leedo ku hor iman doona. Assalaamu calaykum.